markay aragtay in markasta oo saaxiibteed guriga timaado gabadheedu aad u faraxdo xitaa ninkeeda uu si aan caadi ahayn ugu farxo sida ay iyaga qoys dhab ah yihiin haweenaydu waxbaa ka shakisay laakiin weligeed ma aysan muujin xitaa waxay u ogolaatay ninkeeda inuu saaxiibteed la galo qolka dharka lagu tijaabiyo sababta waxay ahayd in haweenaydu hore u ogaatay xiriirka qarsoon ee ninkeeda iyo saaxiibteed xitaa gabadha ay korinaysay waxay ahayd gabadh uu ninku ka dhalay saaxiibteed labadoodu waxay sidaas u sameeyeen si gabadhu u korto oo ay ugu dambayn hantida haweenayda u dhaxasho saaxiibka ayaa moodaysay inay wax walba si qurux badan u qarisay balse haweenaydu hore ayay runta u ogaatay waxayna muddo dheer diyaarinaysay aargudasho sannado badan haweenaydu si fiican ayay u ciyaaraysay doorkeeda gabadha ayay u muuji jecel waxaana ay iska indha tirtay dhoola caddaynta iyo isriixiiradka ninkeeda iyo saaxiibkeed ujeeddadeedu waxay ahayd inay sugi karto ilaa ay dabinka ugu dhacaan 10 sano ayaa sidaas ku dhaaftay markaas gabadha oo si xad dhaaf ah loo dulqaaday waxay noqotay gabar fowdo ah oo fasalka ugu dambaysa markay aragtay warbixinta waxbarashada gabadha saaxiibka ayaa walwalsan noqotay laakiin markay xusuusatay in gabadhu hantida haweenayda dhaxli doonto waxay haweenayda weydiisay talo haweenayduna si lama filaan ah waxay ku talisay in gabadha dibadda loo diro si ay waxbarasho u dhammaysato oo markay soo noqoto shirkadda la wareegto saddexdooduba aad bay ugu farxeen markii gabadhu dibadda u baxday saaxiibka marna guriga dib uguma soo laaban ninkuna had iyo jeer uu soo daahi jiray haweenayduna iyada og wax kasta marnaba su'aal badan ma weydiinin waayo si aad qof u burburiso waa inaad marka hore u ogolaataa inuu isku kalsoonaado wax walba si qorshaysan ayay u socdeen markii gabadhu ka soo noqotay dibadda saddexdoodii waxay u wada tageen garoonka diyaaradaha saaxiibka oo aad u xiisay gabadha ayaa ku sigatay inay sirta la soo baxdo waxayna ku tiri gabadha hooyo ii yeer gabadhu way ka xishootay oo dhinac ayay u baxay waxayna haweenayda ku tiri goorma ayaan shirkadda la wareegayaa haweenayduna hore u diyaarisay shir jarayd oo gabadhu ka soo qayb gasho marka ay soo degto shirka jarayd ayay ku shaacisay in gabadhu beddelayso dhammaan hantidana shirkadda lagu wareejinayo ninka iyo saaxiibkuna farxad la qarsoomi waayey markii dadku ammaanayeen sida ay u muuqato xiriirka xigaalka ah ee haweenayda iyo gabadheeda saaxiibkii ayaa si lama filaan ah u soo baxay wuxuuna soo bandhigay warbixin caddaynta dhalashada DNA waxayna ku dhawaaqday in gabadhu dhab ahaan iyada gabadheeda tahay oo ay runtii hore u jeclaayeen ninka laakiin iyada looga tegay uurka si aysan u dhibtoon haweenaydana loo isticmaalay sidii inay iyada u dhasho dadkii waxay bilaabeen inay haweenayda u naxaan iyagoo saaxiibka ku tilmaamay dahabraac ninkii ayaa isla markiiba difaacay saaxiibka wuxuuna ku dhawaaqay inuu haweenayda furi doono haweenayduna wax dan ah kama gelin waxayna gabadha ka codsatay aragtideeda gabadhu si qabow ayay u tiri inay haweenayda ka tegayso waxayna ku adkaysatay inay ninka kala furto oo ay u diri doonto $500 bishii nolol maalmeed markaas ayuu nin kale oday ah isku dayay inuu haweenayda ka caawiyo dacwad si ay hantideeda u soo ceshato balse haweenaydu iska indha tirtay waxayna si fudud u saxiixday warqadaha furiinka xitaa waxay si siisay agabka qoyska ee qaaliga ahaa dadka oo dhan waxay u maleeyeen inay waalatay saaxiibkii iyo ninkii iyo gabadhu isla markiiba ku maadeen iyagoo leh waxay ahayd nacas hodan ah laakiin waxay iloobeen in tani ay qayb ka tahay qorshaha haweenayda warbixin qaada ayaa soo istaagay oo weydiiyey tani qorshahaagii miyaa haweenaydu jawaab ma bixin way iska tagtay oo aamusan markay saddexdoodii arkeen waxa dhacay waxay ka shakiyeen inay haweenaydu qorshe ka leedahay sidaas darteed way dabagaleen markay gurigeeda yimaadeen waxay arkeen haweenaydii oo nolol aad u liidata ku jirta waxay ku farxeen dhibaatooyinka ay arkeen waxayna ku kaceen inay hadal ku dhibaan balse iyadu jawaab kama bixin ninkii caro ayuu galay sababtoo ah wixii ay ku sameeyeen shirka jarayd waxay hoos u dhigtay qiimihii shirkadda wuxuuna ku eedeeyey haweenayda gabadhu waxay tidhi hawelwelin waxaan guursanayaa ninka ugu taajirsan dalka wixii dhacayna waa hagaagi doonaan dhammaantood way farxeen oo waxay sii wadeen cayda haweenayda dabadeed way baxeen maalintii arooska gabadha saaxiibka ayaa arkay haweenayda oo timid waxayna ku carootay iyada oo u malaynaysa inay haweenaydu doonayso inay isku daydo ninka taajirka ah haweenayduna waxay tidhi waxaan haystaa casuumaad gabadhu way diiday oo tidhi adiga kuguma casuumin markay saddexdu bilaabeen inay aflagaadeeyaan haweenaydu waxay soo bandhigtay warqadda casuumaadda waxayna tidhi ninka ugu taajirsan ayaa aniga i casuumay gabadhu way naxday markay aragtay inay run tahay saaxiibkuna waxay ku eedaysay haweenayda inay warqadda ka xaday waxayna amartay waardiyaasha in la saaro laakiin ninka ugu taajirsan ayaa yimid oo halkii laga filayay inuu haweenayda ka fogeeyo wuxuu ku yidhi hortooda oo dhan hooyo